kastoo muddooyinkii ugu dambeeyay guux hoose iyo dareeno badan ay ka taagnaayeen deegaanada kala duwan ee gobolada Awdal iyo Salal isla markaana shacabka qaybihiisa kala duwan ay il gaar ku hayeen waqtiga rasmiga ee cod dheer ay ku shaacin doonaan mowqifkooda siyaasadeed ee ku aadan hanaanka doorashada golaha wakiilada lagu galayo maadaama salaadiinta iyo waxgaradka deegaanadani ay horay cabasho dhinaca saami qaybsiga ugu gudbeen xukuumadii madaxweyne Silaanyo ha yeeshee tabashadaasi aan waxba laga soo qaadin ساعات وحمدوين كي وجودن بيصوب حي ورك الشيء إن حكومة مدحوين موسى بيح عبدي أي دبدك الريح يسوق قرشها إن دورشة قلها وكيلة الصومالي لان لجو قليو قرشية تجابة هاي سلامر كان بيلها ضرفية الصومالي لان أي مرتضى كوها هاي قلها وكيلة shir ay maanta ku qabteen gudaha magaalada Hargeysa mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Awdal ayaa waxay cod dheer ku shaaciyeen inay gabi ahaanba qaadaceen doorashada golaha wakiilada Soomaaliland maadaama ayna xukuumaddu ka jawaabin dalabkii ahaa sixitaanka saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka waxaana kamid ah mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxaan fadhidaa arrintaas saami qaybsiga arrintaas markii hore sidii doorashada loo galay waxay ahayd shantii degmo ee lixdankii oo gobol noqday iyo berbera oo lagu dhuftay 2.5 saddex kursi ee koonfurta xeerku wuxuu leeyahay ilaa xeer baa shaqeeya dadku xeer bay ku wada shaqeeyaan doorashada imika wixii ka dambeeyay laguma gelayo taasi hore ayaa ku galayno ee waxa lagu gelayaa وإن ذلك الوطنية تركوب وإن ذلك غير قبطان لبيس ويسع لو قيب صدا حكومة دوعا كعوصان هي تركوب كي صدح بلطنا كفوتي أي قبطو هدي أي قبون ويدو وتركوبنا القبون ويسير يا غوغو مرنا بوت جبان نقطع أول الله مقرن تتكيقلوا عدو شيئا إلا أنت جابان لبعض أو يدرسوا بلساو أو تي أو كري آني جيرين سيد دون تاون علي تاسع نقطعين gobolada kalena waa naamid oo ninkasta uu ka cabanaya saadaraadii waxaan xukuumadda u sheegaynaa inaan annagu wadaan Awdalna aan ku galay doorashada tii hore ay naga go'an tahay in aan doorashada aan galin barnaamijkan madaxweynuhu soo gudbiyay ah doorashada sideedii baa lagu qabanaya waxa weeyaan barnaamijkaas oo inaan u soo bandhigno dadka madaxweynuhu la bareeray sida indhala'aan waxaan u sheegayaa madaxweyne Muuse dadkan wali wax badan baa ka qabiya si alla si wax loo wada leeyahay oo loo wada joogaa waxa way sinima jirto sanadkii soddonaad baa in khaldee waxaan sanuuni ka soddon jir weey Soomaaliya halkii laga soo bilaabay inay dhaafin waxa weeyaan dawladihii kala dambeeyay midba in bay wax sameeysay xilliyadii ugu macquulsanaa ee wax noo qabsoomeen waa ahda qarneedkii markii shirkii boorna dastuurkii taraafka ahaa oo dee turbo wax badan ka qaldan yihiin oo la dareemayo oo wax badan la toosiyo la doonayo dawladnimadu waa dastuur ma aha shakhsi ma dawladnimadu waxa la dhahaa hooyaan Soomaaliland deegaano badan bay ka kooban tahay loo yacday ilaa iyo baran inta u dhaxayso la isku geeyay baa Soomaaliland samaysay garanaysa haween waxna uma qaybsana markay noqoto golayaasha waliba golaha wakiilada wax weeyaan beeraha daafaha iyo marka loo eego beesha dhexe wax weeyaan mooshin ma gudbin karaan baad intooda dil isku daro waxweeyaan Muuse markaa loogama fadhiin sidii hore lagu qabanaya dhaay xal buu mooday oo caalamku wax ka iibinay marka laakiin markii dawladnimo loo rasmi loo dhaadhacay doonay xilligan lix bilood bay ku dhamaan kartaa loo qaban karaa doorashada waa sanadkii 13aad bay maraysaa maanta golaha wakiilada marka haddayna waxba samaysan karin oo aanu madaxweynihii la doortay tirada inta la ugu codeysay aanu ku dhacba lahayn الدستور كان كل حكاية إنه يراوي كريم وربحان نجح قبيعة وهو إن الآن تي ولي سيوه هو يفرين بود ربيعي يسكتك أسكت على طريقة واحدة المحيط تصنف فرحنوي هو يعني ما ننفي لأننا نلح بلاد كعب على إنه مدحوينه
laakiin waxaad moodaa in dowladnimadii la sii shawalayo la sii kufay wax badan baa ka soo baxaya meeshii waxa weeyaan maanta wixii dowladnimada loola jiray inay shaqaysan la doonayay maanta Somaliland khayraadka ugu weyn waa dhulka dowladna gacanta ugu jirto dowladnimada Somaliland ee magan gelin kari weynay lacagteedii inay ka ilaaliso lacagaha ka garab shaqaynaya isticmaal walkaas iyo dayada qayso aween wixii uu qabyada ahaa oo dhanba ma garanay madaxweyne waxa weeyaan intuu gola wada caruuro meeshii keensaday ciidiba waxba kuma contribute gasho waxba kuma tag waxba kuma soo kordhiso aween uu ka ilaaliyay cidii wax tir lahayd oo dhamaash maanta farximo badan baa soo muuqata haween sabon 6 bilood jirin baa fashilaadiisii dib bay soo qoraysaa marka madaxweynaha waxaan leeyahay fariin baad u diraysaa beelaha adleed iska kala dareera in Soomaaliland uu joogin baan ka qeybsanay war wixii la isku aamin lahaa ee wax lagu wada yeelan lahaa ee meel lagu wada dhigin lahaa lagu wada dhiman lahaa inaad abuurtay oo dadka meel suuqa wixii ay xaq iyo kala tabanayaan iyo siday wax u kala helayaan xiloo qiimo walaha tirada hal sii kordhiyaan ma wajalaade haween cid golahan ku dhagan oo inay sii joogto doonaysa aanu professional baa meesha doon shaqti karay garanaysa waxa leeyahay madaxweyne Muuse wixii ka horeeyay ee ka qabyada ahaaba ka mudan in marka hore la soo bixiyo doorashaha la qabto ma suurtoobayso waxaan dadka igu sheegaynaa there's no reason ay doorasho u dhacaan waxa weeyaan sidii lagu hawlgalay iyo sidii lagu codeeyay sidii ku dhacay uu leeyahay loola iyo sida qaab jafaysa isma aan ku soo koobaya inta wada joogta iyo ursanaanta ay maanta jirta kala kaxayn ma qeyrna Muuse assalamu alaykum marka horta waa wax lala yaabo madaxweynuhu isagoo dalka joogay oo musharax ka ahaa oo ka hadlay dhowr jeer ka hadlay arintaas inuu maanta golaha keeno uu yiraahdo 13 ka saal iyo awdal ku galaysa si hore ku galaysa wax horta laga dhigaysanaya ma madaxweynuhu waxaan ognahay dawlad buu dhisay xukuumad buu dhisay xukuumaddaasi darafyada way ka badiyeen darafyada ka badiyeen beeshii dhaxuu ku soo jeedo ayuu miiso dadku iska amsiin waa la yaabay waliba wax la war 6 bilood 7 bilood buu joogay balu kaadiya haddana wuxuu ku daray inuu raadsi golaha wakiilada oo markii hore golaha wakiilada golay saabuha wala xeer buu runta sheegaynaa wala xeer buu sideed iyo konton labiye sideed kamidii waa isaaq weyn afar marxaatiyan baa la joogay 4 baa beelii kala dhan ayaa ka jira 4 ka markaa inuu yiraahdo 4 kii wax ka yar baa lagu gali doonaa wax horta aynu aqbalayna maaha madaxweyne kana waxa weeye gobolkii awdal annagu wakiil baan ka nahay wakiiladii gobolka awdal baan nahay yeelina mayno intaan ku sheegayna dadka iyaguna yeeli maayaan in lagu galo golahaas oo sidii hore loo galo oo golo isaaq adiga sharaf kuma ayna tiraad golo isaaq oo dambaa soo noqdo golaha isaaq noqdo hawada noqdo tiradiisu adiga sharaf kuma ahay waxay ahayd inaad dadka shu keentid أتلاقوا waa maxaan qaybinay seen qaybinay xog way kariyaan inaad tiraadid wareysaqo ma taana ma xaqini joogay inta niga soo jaray inta ugu darabeelaha darfiyada tiina meeyay madaxweyne da waxa weeye anagu waxaan ku sheegaynaa maanta inaan doorasho ka dhicin gobolka awdal gobolka awdal doorasho noocaas oo 13 kursi kama suurta gasho oo adeeda waliba 3 dumarkaan siiyay labana dadka laga tirada bariyaa siiyay 8 nood laba qabiil ku gali maayaan runtaan ku sheegaynaa Cabdilcasiis Ibrahim Cabdullaahi shabakada caalamiga magaala news Boorama